والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. runtii ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala bacda almahad kadib waxaa maanta farxad iyo reereyn oo ah in ay nagu soo biiraan walaalaheen saaxiibadeen siyaasadda iyo colka iyo cadowgaba aan isku saaxiib ka nahay oo siyaasiyiin ah oo ku soo biiray shirkii 20 bisha ka furmay magaalada Kismaayo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay walaalaheen inay noo imaadaan ayagoo aan sugaynay horeyna isku siyaasadii isku aragti ka ahayn systemka guud ee Soomaaliyeed ee siyaasadeed iyo midda reer Jubbaland intaba oo aan horey ugu iyo mar hore iyo mar dambe aan ka wada shaqeynaynay danta ummadda Soomaaliyeed iyo horumarka iyo dowladnimada iyo nidaamka iyo wanaagga. farxad weyn bay noo tahay inay noo yimaadaan Alle inoo nabad keenay baan mahad iskale subxaanahu wa tacaala oo si nabadan isku kaaya keenay. waxaan leenahay walaalaheen soo dhawaada ku soo dhawaada dadkiina iyo dalkiina aad madaxda u ahaadeen ayadoo insha Allah Rahmaan howlihii socdayna aad xoogaal ka ahaadeen halkoodana aad kala qabsan doontaan haddii Alle idmo. runtii waxaan filayaa maanta reer Kismaayo ama madaxda Jubbaland iyo dawladda dhexe intaba oo uu nagala joogo walaalkeen Cabdirashiid Xidig wasiir dawlaha arrimaha gudaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo xildhibaanadii iyo saraakiishii iyo dhaqankii reer Jubbaland qof kama harin waa maxabay iyo saaxiibtinimo iyo walaalnimo la idin qabo soo dhaweynta intaas la eg aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa idinkana sida aad runtii adinkoo raba dadkiina iyo dalkiina inaad horumar iyo wada tashi la yeelataan inaad noo timaadaan. haddana insha Allah Rahmaan waxaan la jeclahay inuu madaxweyne ku-xigeenka كلمتي سو دوينتا يراهدي aad iyo aad baan u mahadsantahay. alxamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in ala umur dunya wa din sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam. maanta waa maalin aad iyo aad noogu weyn maxaa yeelay waxaan ugu soo biiray oo noo yimid siyaasiyiin reer Jubbaland ah oo mug iyo baaxadba ku leh dhulkan Jubbaland oo aan sugaynay muddo dheer iyagoo ku maqnaa shaqooyin ay Jubbaland ay u wadeen dhinacooda ka waday ayagoo nagala qayb qaadan doona hadduu Ilaahay yiraahdo howlaha aan ku jirnay ee shirkii dhawaan ka furmay hoolka weyn ee shirarka magaalada Kismaayo siyaasiyiintan oo tiir adag u ah ama laf dhabar u ah wada hadalkii aan daahfurnay ahaana horeyna u sheegnay siyaasiyiinta aan u hambeynay iyaga hadda noo yimid iyo kuwa kale aan sugaynaba laf dhabarkii aan horey u tilmaamnay dhulka Jubbaland muxuu ahaa dib u heshiinteeda iyo u dhisidda maamulkeeda iyo ka wada qayb qaadashada horumarkeeda muhiim noogu ahaa. waa Ilaahay mahadii hadday maanta noo yimaadeen mudanayaal siyaasiyiinta nagu soo biirtay ee noo timid oo uu hogaaminayo siyaasiga weyn maxamuud sayid aadan oo wada taqaanaan ahaana xildhibaan qaranka Soomaaliya ahaa iyo siyaasiyiinta kale oo ay ka mid yihiin maxamed oo libaax cabdi barre korneel balaag cabdi qani shacali diini iyo intaan haata carab ku dhuftay intaan ku dhufanin oo culuw iyo rag ah ay ku jiraan. waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiini hooyo ku soo dhawaada magaalada madaxda ku meel gaarkeeda Jubbaland ku soo dhawaada gogoshiini oo fidsanayd oo madaxweynaha dawladda Jubbaland uu noo daahfuray 20 bisha haatan aan ku jirno aan idin la sugaynay inaad ku soo biirisaan aqligiina wax qabadkiina nidaamkiina iyo wada toosinta wax wada toosin doona hadduu Ilaahay yiraahdo gogoshaas oo ah gogosha midnimada iyo sulaab xarnaanta ama mideynta beesha kamid ah beelaha dhulkan ku dhaqan Jubbaland ama marka la yiraahdo beelaha sade gogosheedii weyneed ahayd oo aan sugaynay oo aan filayo inaad ka muxuu ahaa ka qayb qaadan doontaan aadna u tihiin buddigaheedii baan idinku soo dhaweynaynaa xukuumadda Jubbaland oo aan hor kacayo baarlamaankii oo xubnihii ugu badnaa ay ka socdaan dawladda inteeda kale to shacabkii dhammaantood ilaa maanta qoraxda liin tuurnaa oo idin soo dhaweynayaa saas ilaa waxa farxad noo ah soo dhaweyntaan inuu ka soo qayb galay salaadiintiina way ku jiraan ma ilaabahayo iyo nabadoonnadii soo dhaweyntaan inuu ka soo qayb galay wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya
أيضا وحوي فرحت كلو وين وحنا لنا سو دوادا كسو دوادا إن شاء الله تعالى دلكيني آدي آد بان أقفر حسنا هرتاس سياسيين تنو يمت يكون نجا مقولن سوق النبا دمان وحي موجنا سام من ماذا يسكدوبني دا جبلان dadweynaha reer Jubbaland meel kasta joogaana waxaan u sheegaynaa in ay dhamaatay kala tagi in ay dhamaatay tafarruqi in ay dhamaatay isqabqabsigi in loo soo wada jeestay wax wada qabsigi iyo maxaa la yiraahdaa iyo wax wada qabsigi iyo midnimadii Jubbaland aad iyo aad baan idin salaamahayaa soo dhawaadaan ilaahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xilligan kulul oo waqtiga dheera in la soo dhaweysay waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland wasiir Cabdirashiid Xasan Cabdinuur wasiirada kale oo joogo xildhibaanada sharafta leh ee reer Jubbaland salaadiinta maamulada heer degmo iyo heer gobol ciidamada saraakiisha bahda saxaafadda wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Cabdirashiid Xidig oo aan saaxiibo fog muddo dheerna soo wada shaqeynayni ah aadna ugu faraxsanahay inuu maanta joog ahaado mahad ilaahay baa iska leh waa idin mahad celinaynaa mahad kadib waxay ila tahay waa socodkii labaad sanadkii hore ee naga tegay bishii September baan idin nimid waxaa ka sii horeeyay shirkii degmada Doolow gobolka Gedo bishii 8aad ka dhacay oo isfahanka iyaga mas'uuliyiinta Jubbaland iyo ragga iyaga ka aragtida gudisnaa uu ka soo bilowday maalinta ilaa maanta waxaanu ka shaqeynaynay in maalin kama dambaysa la gaaro oo khilaafka inoo dhaxeeyo oo meesha ka baxayo wax kasta oo khayr ku jiro culays baa ku jiro muddo dheer baynu u qaadatay ballama fara badan baa la dhigay waqtiyo kala gedisan baa la qabtay marba si ayaa culays u imaanayay iskugu dul qaadanaynay annaga maanta waxaanu ka nimid magaalada Muqdisho oo aan muddooyinkii dambe dadkii aanu isku aragtida ahayn gudaha iyo dibadba aan ku wada xaajoonaynay waxaan idinku bishaareynayaa 100% inaan fikirkii isku raacnay in doonta Jubbaland la wada fuulo horumarka dalka iyaga iyo ammaankan aan ka wada shaqeyno nimanka cadawga ah ee aad ogtihiin inay deegaanada iyada saldhigyo waaweyn ka samaysteen annagoo midaysan aan wajahno socodka iyaga maanta waxaa xigaya socodyo kale oo maalmaha soo socdo rag kale ku imaanayaan oo maanta xagga farsamada safarka dartii dib nooga dhacay ayagana mudan inay noo yimaadaan oo golna mabda'an in dhinac loo wada riixo waxaan idinkaga mahad celinayaa daahfurkii aad sii samayseen xilligii ballanta maadaama madaxweynuhu safar ahaa annagana xagga farsamada awgeed dib u dhac nagu yimid raalli baanu ka ahayn waa ka wada tashanay haatanna kuwa maqanna way noo imaanayaan maalmaha soo socdo si wanaagsan inaanu xilligii kama dambaystaha la soo gaaray baan filayaa oo Jubbaland dhinac isu raaci lahayd aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahad celinayaa ilaahayna ha idinka jasi wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sallallahu alayhi wasallam amma ba'd waxaan idin u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada baarlamaanka madaxda sharafta leh heer degmo iyo heer gobol salaadiinta dhalinyarada aqoon-yahanada ganacsatada iyo dhammaan shacabka reer Jubbaland assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh bahda saxaafadda soo waay mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahad celinaynaa xilligan kulul oo 8 saac la joogo oo aadna soo dhaweyseen oo ilaa saaka aad taagnaydeen waa idinkaga mahad celinaynaa Soomaalida waxay tiraahdaa hadal lamana badiyo lamana biiyo waqti kulul baan joognaa annaga waxaan ku soconay waxay ahayd shirka dib u heshiisiinta ee magaalada Kismaayo shirkaasi inuu taabagalo lagu heshiiyo khilaafka siyaasadeed lagu soo afjaro qof kasta oo wax taban hayo oo reer Jubbaland ah
lagu qanciyo gaar iyo guudba qorshahanaga intaasuu baan daba soconnay faahfaahintii kale maxamuud baa sheegay intii aan ka soo bilownay saan u soconnay sida madaxweyne ku-xigeenku uu sheegana ilaa intaa waxaan soo wadnay in aan lagu kala leexan aragtidan siyaasadeed ee maanta la dhammaystiro sababta waxa weeye khilaafkuna dib u dhac buu leeyahay midnimaduna horumar iyo wadajir bay leedahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu